bulshada ku nool magaalada Hargeysa yar maanta wax ka weydiinay dareenkooda ku aadan siday warkaan xildhibaanada ku metelaya doorashada la filayo inay ka dhacdo dawladda Soomaaliland aragtiyo kala duwan ayay ka dhiibteen ayaga oo bulshadu ay ka soo horjeesteen isla markaasna ay tilmaameen inay marnaba meteli karin xildhibaanadaasi waa kuwan iyo arrimahaasi ka hadlaya wallahi aniga arrimahaasi waxay ila muuqdaan si qaldan waynu shaqo tagay oo calooshiisa u shaqo tagay oo dantiisa raacay inuu yiraahdo dan Soomaaliland baan ra'yigeeda ku jira uu ku qaldan yahay waxaana la canduftina dib isoo liqa runtii hadaan ka hadlo horta mtaqaana pointiga iyo qayninka ku taagan tahay dawladda Soomaaliya waa nidaam 4.5 kaas oo u dhisan muxuu ahaa oo ka soo jeeda qabiilada ku tirsada Soomaaliya oo aad u fara badan oo 82 qabiil iyo 8 qowmiyadooda muxuu ahaa anigu waxaan dhihi lahaa marka hore oo dawladda Soomaaliland waxaan dhihi lahaa muxuu ahaa qabiilada ka kooban yihiin way ku jiraan nidaamka 4.5 waxaan dhihi lahaa u sheegi lahaa muxuu ahaa dawladda Soomaaliland inay ka masaxaan qabiiladooda muxuu ahaa nidaamka 4.5 waayo waa baarti ka mid ah muxuu ahaa qabiilada lagu hogaamiyo Soomaaliya markii laga masaxo meelay soo aadaan meelay ka soo jeedaan bay waayaan bismillaahir rahmaanir rahiim aniga magacayga leeyahay Cabdiraxmaan Xasan oo oday ku magac dheer waxaan raggaas inayna meteli karin baan ogahay waayo waxaana lagu meteli karin Soomaaliya iyo Soomaaliland baan kala nahay marka xiga hadaan ra'yi ka hadlo horta nin shaqo tagay aan u arkaa shaqayga fikreen ninka tagay metay qaran sheeganaya anigu waxaan arkaa nin shaqo tagay nin xamaal tagay nin inuu ku meeraysto dad dhisan oo qarana uraado metelaya horta waa qarannimada meel ka soo jeeda waxaan oran lahaa ninka shaqo tagay ee xamaal tagay ee xamaal ku shaqaysanaya inuu qaranka dawladda Soomaaliland meel ka dhaco anu qalad baan arkaa min qaybteen weyn laana marka waxa weeye baarlamaanka jooga Muqdisho ay Soomaaliland baan metelayna waxa leena guurti waxa leena baarlamaan waxa leena madaxweyne waxa leena xusbiye qaran Hargeysa lagama dooran laba oran anaga baarlamaankaas Soomaaliya inuu metelaya marka anu waxaan u arkaa ra'yigayga niman ay Soomaaliya u culmaamaday iyaguna isticmaamado shaqo tagi baan arkay xildhibaanada koonfurta jooga ee u sharaxan doorashada kulli toole horta adduunku wuu ka warhayaayo inay nahay laba dawladood kala madax bannaan kulli marka runaantii waxaan u arkaa nin shaqo tagi oo shaqo doontay qalad baan u arkaa waayo horta waa kala saar dawladnimada iyo muqaddisnimada iyo Soomaalinimada waa Soomaali wadanka lagama xigo laakiin maadaama ay yihiin reer Soomaaliland oo Soomaaliland u dhashay gobolada waqooyi ka soo jeeda waxaan u arkaa arrin qalad ah waayo shacabkii ay metelayeen waa reer Soomaaliland Soomaaliyana cod bay ka doonayaan marka waxaan u arkaa nin aan iska shaqo tagay oo caruurtiisa u shaqo tagay dawladda iyo dalkana aan metelayn soo qorto uu iska yimaado isagoo politik nooc kasta kula sameeyay marka fikir ahaan waxaan qabaa in la joojiyo afidkan loo fidinayo ilaahay buu xafiyay inagu inaynu ku taagnaano weeyo sida tigrayaynu qaadano mowqif adagoo wixii dawladda inaga jiray inaynu Soomaalinimadiis ku raacno oo nu iska deeno ruwaayada oo la joojiyo waxa la wixii Soomaaliya taga waxaan u aqaan anigu biiriqaatayaal xun oo dad xun la jooga sidaa darteed dadkayga shacbigayga reer Soomaaliland ma matali karaan ma sheegi karaan labadayda dhagood way xanuunaan markaan maqlo waxaan jeclaan lahaa nimankaasi sidii iniga waxay ugu qoran yihiin dambiilayaal dalkayga iyo shacbigayga ma matalaan xildhibaanada Soomaaliland matalay hadaan ka hadlo annagoo horta Soomaaliland xildhibaanadaasina ma matalaan gudida wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliyana waa la garanayaa Muuse Biixi waa magacaabay marka xildhibaanada deeba loo ogolaan inay Soomaaliland soo galo si magaca Soomaaliland u matay karaan horta marka hore waxaan ka salaamayaa ra'yiga dadweynaha ee loo tuusay idaacadeena weyne bulsha TV dareenkan Soomaaliya marka laga hadlaayo ee mar walba lagu celcelinayo Soomaaliya dadkan tagaya horta Soomaaliland way ka weyn tahay meel inta laga yar shaqo taga haddana marka dambe magaas bariisku markuu ka soo dhamaado dib loogu soo yar laabto Soomaaliland waa dal talaabsaday waa dal horumar gaaray waa dal ma garanaysa amnigeeda iyo ciidankeeda iyo solution-keeda dhanba u saxan yihiin
somalilan waxaan ka aaminsanahay dadka de ma garanaysaa ay ku beer la xawsanaya inay ma garanaysaa Soomaaliya anagu ma garanaysaa idinka metelaa gobolada waqooyi ku metelaa ee taas waa been baan oran lahaa ka daaya laga hadlo ayaaban horta aad uga xumahay waayo waxa weeyaan nimanka tagay kolay waxay u tageen hungurigooda u tageen annaguna dad maxay tolay hunguri lagu maamulo manihina dawlad baanu nahay tashatay inagu Soomaali ahaan markaanu nahay de waxaanu nahay dal Soomaaliya waqti la joogay laakiin ka go'ay sida awgeed markayna xildhibaanadaasi nima matalaan deegaankaasi amaba khilaafka halka ka taagan xildhibaanada ku metelay Soomaaliland iyo u dhaxeeya doorashada Soomaaliya bal adigu aragtaan soo arkay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdicasiis Axmed Cali baa la yiraahdaa niyo dadka horta waxa ka dhaadhacsan anu beesha dhaxanahay marka waxa naga dhaadhacsan horta waddanka Soomaaliya waa Soomaali weyn wali kama noo goyn anigu 8 dal baan maray 8 dal waxaan noo imaanay safaaradda Soomaaliya safaaradda Soomaaliland oo wali ii timaada maan arag Masar waxay ka soo qaaday Soomaaliya Saudi Arabia kadalik Abu Dhabi saasoo kale Yemen saasoo kale Cumaan saasoo kale deemeel walba safaaradda xun imaanay Soomaaliya wadankii anu de beesha dhaxanahay laakiin de runta fiican de wadankii de wali kama noo goyndee wadankii wali xildhibaanada ku xilka joogaana de waa niman wali dawladda federaalka ahayd maalinta inuu ka goono ee la yiraahdo Soomaaliland way ka gooday sida koonfurta Suudaan ee la yiraahdo dawlad caadiyaatiin ayuun baa la oran karaa dadka xagaan xuutiga hadda ma garatay 2 bilood ka hor waxaan ka soo degaan Masar aadan cadan ka soo degay wadawad khaldan tahay hadda ma garatay soo gabagabay soo gabagabay Soomaha rayay soo gabagabay hadda ma garatay Soomaali weyn de wali waan nahay haadeede xildhibaanadaas ku metelay Soomaaliland nuxurka u daad xildhibaanada Soomaaliland ku metelaya waa xildhibaanada waxay ka mid yihiin 60 kan ee baarlamaanka dir 60 ka baarlamaan ee dirna heerade waa xildhibaano ka tirsan Soomaaliland wax dhibi kuma jiraan Soomaaliland ka soo jeeda jooga Muqdisho nima metelaan anaga waayo anagu waxaan ahay wadan madax banaan oo Soomaaliya ka go'ay 1990 Umar Ali Ducaale Umar Shabash telefishinka bulsho magaalada Hargeysa hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 tayo waa Telesom